محاضرة وحنا سجين دونا الشيخ محمد الطيب. محاضرة العنوان في الرحيان تربية الأولاد أما عرورة السيلو تربية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إله سبحانه وتعالى مهد لما أنت هذا وسقناتي إلهي النوافجيي إن هذه الجلسة أما اجتماعا كلا كان آدك وقالقة أينو يسوقد بيننا أما أينو يسكوانين هينو سيدا ربي يقول دوان الله سبحانه وتعالى نولشنا أن أوغو جانغوين لهين أما أوغو جيمين لهين دين كإسلام إن وحان كلمة إنه يكون سابسنان دونتا موضوع مهمة سيدا دبت هدين كستوء مدفع دينو داشين وحان رجينا يا إنو إن هداد للموتان نوال المونية marka in aad igu mushaataraysaan inaad dhagihiina waxaway caariyeysaan الموضوع waxa weeye تربية الأولاد في الإسلام waa arrin weyn mar walba iyo meel la joogaba weyn ilaahay agtiisana ka weyn waa xil culus oo aad u culus qofka muslimka ana haddii uu haysto bulsho iyo dawlo waxa uu aaminsan yahay aaminsan waxba ka dhaca xilkii qaar baa u fududaada laakiin hadda xilkii oo dhan baa lagu soo wareegay isaga oo ka culus intii uu ahaa asalkiis waxay nagu soo wareegay marka aynu meeshan joogno bulshadu qaybtay qaadan lahayd iyo qaybtii systemka iyo nidaamka lagu hoos nool yahay iyo madrasadii iyo ay qaadan lahaayeen baa inagu soo wareegay tarbiyada asal marka qaybaheedii ay lahayd oo dhan baa hadda inagu soo fakaday waxaan marka mawduucan uga hadli doonaa si kooban sida soo socota tarbiyada kalimadan tarbiya maxaa laga wadaa mawduuceedu waa maxay meesha tarbiyada meedaanka lagu fuliyaayo maxuu yahay tilmaamaha qofka inuu wax tarbiyeeyo la doonayo wasiiladaha ama waxa loo isticmaalo ama lagu gaaro waxa la doonayo wasaa'ilka ah waxaynu ku soo koobaynaa saddexda mawduuc maxaa yeelay mawduuc weyn haddii aynu firdhino waynu wada waaynaa macnihiisa marka 45 daqiiqo yaynu u qaybsanayno tarbiyada iyo mawduuceeda tarbiyada kelimada la yiraahdo luqa ahaan macnayo bay ku yeelataa uu kamid yahay islaah ama wanaag islaahin barbaarin maamulid sida darteed baa magacyada ilaahay waxaa kamid ah rabbi yaa kamid ah subhanahu wa ta'ala marka mawduuceeduna waa bani aadamka qofka oo dhan baa tarbiyada qaadan kara qof kaste waxbuu tarbiyeyn karaa waxna uu qaadan karaa caruurta oo kaliya tarbiyada uma baahno qof walo bani aadam uu tarbiyada ugu baahan yahay maxaa yeelay wuxuu isticmaalaa ama ka suura galaa inuu hore u socdo tarbiyadu asalkeedu waxaynu nidhi islaahin iyo macnaheedu waxa kamid ah islaahin iyo barbaarin hore u socosho oo korin yaa kamid ah marka dadka oo dhan way ka suura gashaa hooyada la tarbiyeyn kara aabaha la tarbiyeyn kara qofka waayeel la tarbiyeyn kara isagoo dhalinyaro la tarbiyeyn kara mawduuca marka waa dadka oo dhan min sifar laga bilaabo ilaa inta doonto dadka oo dhan baa tarbiyoobi kara waxa uu caruurta loogu soo mar walba looga hadlaa caruurta tarbiyadeeda loo yiraahdo iyagu waa geed cusub oo baxayo oo hadba sidii loo bixiyo loo leexiyo inay u leexaan laga rajaynayo laakiin dadka oo dhan tarbiyada way u baahan yihiin caruurta markii la yiraahdo marka iyaga tarbiyada caruurta marka la yiraahdo yaa waxay u baahan tahay si gaar ah yay ugu baahan yihiin maxaa yeelay waa weel maran oo qof waliba intii uu ku shubto uu ku leeyahay xukunkeeda tarbiyada haddii mawduuceedii aynu sheegnay oo bani aadamka oo dhan laakiin hadda inagu meel gaar oo juz'iyo gaar ah ka wadnayo ilmaha tarbiyintooda caruurta dhalinyarada
لو أنا ولا جيت موضوع محاضرات أساء ومنتهي هاي حكم كذا وما هي تربية الوجوب قفك ولي الأمر وهو إلمها كمسؤولك إنه بقدر ما يستطيع كتربية أو كوناجية أو كإصلاحية أو كتربية أو كبربارية أو كورية سيدي وآخرتي سي أدون كيسبة أو نجح لها إلهي سنة أو كحرة تربية قيت الدين كأو كلية ما هو وقفك أنه لا شيء يصير لها جاجيو الله بربارية أما الله تبرره ليعبد الله موحدا وليعيش في الدنيا سعيدا إنه إلهنا عابد الدنيا نسوء سلمان النور إنه النور إنه الله دياري عنصر أما كائن إن بوزيتيف أو الدنيا كسر برأينا أو دياري سو وي حكم كلمة كواجب إله حليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كذلك مؤمنين توهوا إن كإلالية نفتين يهلكين نما عذابك كإلالية نار تاس شداد كذا وهي وحلوش وشدا يهي ذلك هي نجحانتا إلى آخر الآية إن قرمو مكة باللوضة حكم كثير وواجب بينهم تربية علمه قرمو باللوضة وحب باللوضة أنت أن هو يدي لقرسان علمها أما هو يدو تربية دكتور باللوضة أنت هنا علمها أبوه أين قرسانين إن لو أنا قرسانين قبل نوي قرسانين كلهم قرسانين بس نيكم ما قرسانين قرآنكم مرة قولوا فاعل كذي مرة نيكم فاعل كذي حتى تنكح زوجا غيره يضع فاعله إلى كيف قرسته بركوا ليش قرسته كون فرصة المركز غير كبيرة يا أنت كوفي عنه ويلك ولا ولا يا راسي أكلم مالك بكذا يقول لي يلك ويسا راسي نعم مركز أنت أين إسقور سنين أنت أين إسقور سنين بيت بالله وتا أنت أين إسقور سنين بيت تربية بالله وتا محيي هو بدر وأبو كان ماشى أكوري ليس وغير كسي في سطار لوان wixii aad murataa ku soo baxayeen marka sida darteed ba islaamku guurka hortiibo wuxuu dhigay shuruud buu dhigay lala hadlayo qofka wax guursanaya iyo gabadha oo gabadha weligeeda lala hadlay ida jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu hadii uu yimaado qof diinkiisa iyo akhlaaqdiisa aad ka aaminto ku aad ka raaditihiin u guuriya illa taf'aluhu takun fitnatu fil ardi wa fasadun 'arid sida hadii la yeelina adduunyada fitna ka dhacaysa iyo fasaad weyn oo fasaadkaasi goormo dhacaya hadii gabadhii loo diido iyadoo kufki haysata waa fasaad hadii loo guuriyo qof aan diin loogu dooranina waa fasaad marka weligii waxa la amray oo gabadhii إلا قبلنا كريجيني نينك دورة تبعه وإن لا دورة وإن لا دورة نينك أمانة له يلا المها يدشوا يدوريه ده بلو آمين كرو الدين هان لو آمين كري أخلاق هان نينكينا والله الله يوحليني فاظفر بذات الدين قبل الدين كله يلقول لي ما يكون لي بان أنت أصل كل كله للديانة دي أخلاق كدب وحكى لا تأو بني آدم كو أي نولش وكان إنه يقطعي حساس قطعي لما لنا دورته أو قوانين يويل كيرا أقول ليهين إن أي مغال كود وقرصي هاي إن ونبمن وخير زيادة نور على نور لكن أنت كلا تور هذا يستطيع أن يسني الأخلاق دي الدين كي وحاسد دوار مصونة ولا كلا تغيير ماشى حقيقة هو الدين كيو أخلاقنا marka ilmihi tarbiyadii waxa bilowday oo shaqadeedii bilowday goortii aad hagaajisay guurkii shaqadii bilowday haddii aad guurkii oo hagaagin adeemihii ay dhashaan oo guurkii oo qaldan waa aabihii oo nahay kii wax tarbiyan lahaa lawa murabbi aabahan isaga murabbi noqon doona kii wax tarbiyanay noqon doona marka gabadhu sidoo kale waa murabbi waa macallinkii koobaad gurigu marka macallinkii koobaad ba haduusan hagaagsanayn tarbiyadii iyadoo fashilan bay soo bilaabatay marka waxay ka bilaabataa
maxaynu nidhi tarbiyadu waxay ka bilaabataa guurkay ka bilaabataa tarbiyadu guurka waqtigeedu yuu bilowdaa camaliyan goorta ilmuhu uu bilowdo in la tarbiyeeyo oo barbaarin lagu sameeyo ana haddii qalqaalaheedii anu nidhi wuxuu kasoo bilowday guurkii oo badrigii meeshii beertii laga abuuri lahaa ilaa beer baa laga xabiyo fa'tuu xarthakum annaa shi'tum ilaah subxaanahu wa tacaala beertiina qaabkaa doontaan u abuurta kolka la leeyahay xaaska iyo ninkii xaaskiisa sutagidooda markii laga hadlay beertii marka ay soo baxdo oo uu ilmihii yimaado waxaa lagu bilaabayaa diinkeennana waa diin alfitra isla markaa waa mucjiz tallaabooyinkiisa haddii aadan caad ahaan iyo curfi u qaadanin aad diin ahaan u qaadato hoos u fiiriso meel kasta oo islaamka kamida markaad fiiriso waad la yaabaysaa oo waxaa kuu soo baxaya xikmad rabbaaniya oo ku jirta ilmuhu markuu soo dhashaa tarbiyada lagu bilaabaya waxyaabo fara badan oo inagu markii hore qaat u leynayna garahayna marka cilmiina hadda markii loo baaray kulli wixii macnayo waa weyn leh yaa soo wada baxay ilmuhu markuu sidaa u soo dhashaa lagu aadaamay ilmihiisa maxaa yeelay cajaladiisa inay wax duubto markaas bilaabaysa markuu sidaa u soo baxo camaliyan inta awoodiisa aynu hayno yaa waxaa bilaabanaysa in uu toos cajaladiisa u duubto waxaaba hadda la leeyahay kolka uurka ku jirana wuu maqlaa yaaba hadda la leeyahay arrinta waad maqashay soo ma isagoo uurka ku jiro maqlaa baa la leeyahay isagoo uurka ku jiro wax sii maqlaa baa la leeyahay laakiin innaga hadda kol hadduu banaanka yimaado waa xaqiiqa taasi laakiin haddana waa xaqiiqa cilmi atibadu way sheegeen baa in wax maqlo saa darteed culimo fara badan waxay ku talinayaan gabadh markay uurka tahay dhegeysiga qur-aanka ha badiso qur-aanka kor u baxaya dhegeysigiisa ha badiso banaanka markuu yimaadaa in lagu aadaamo aadaamkaasi waa ardada yimid muxuu ardadii ku salaamay kalimata tawxiid markuu dhimanaya waa kan layidhi laqinuu mawtaakum laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah kolka qofku dhimanaya laa ilaha illa allah baa la rabaa inuu ku dhinto kolkuu soo dhashana laa ilaha illa allah tarbiyad way bilaabatay marka mar haddiiba laa ilaha illa allahu aadaankii la gaadhay tarbiyadii way bilaabatay saa darteed marka uu meeshaa yimidba dhagihiisa waxaa laga ilaalin waxun in maqlo indhihiisa waxaa laga ilaalin waxun inay arkaan waxaa la ilaalinayaa shucuurkiisa wuu dareemayaa wax allaaliy wuxuu la kulmayo isla markaa inuu dareemayo wax ku garan daqiiqada kadib wuu ooyayaa afka wax saara lileh muxuu ooyayaa waa gaajaysan gaajuu dareemay soo maha marka dareen buu leeyahay mar hadduu dareen leeyahay wixii xumaayo oo dhan baa laga ilaalinaya tarbiyadu way bilaabtay marka saa darteed nin baa wuxuu u yimid ilmaha ilma u dhashay qofku u yimid rabbi wuxuu ku yidhi ilmaha ii dhashay tilmaan si wax loo tarbiyeeyo markaasuu goormu dhashay wuxuu yihi 3 bilood 3 bilood baad khasaartay goorma hadda waxay weydiinaysaa 3 bilood oo dhan yaad khasaartay oo tarbiya aad rabay inaad soo bilowdo sidaa darteed waa daahsan tahay marka laga soo bilaabo markaa waxaan ka wadnaa halka uga soo bilaabaynaa wuu ku bilowday camaliyadii iyo mas-uuliyaadkii markii uu soo dhashayba way ku bilaabatay waxaa kamid a marka meesha intaynaan gaadhin camaliya tarbiyadiisii kale oo hadal in la bari iyo in wax looga digniyo wax loo amaha laga bilaabo markaas isaga xuquuqdiisii baa bilaabatay meeshaasaan wax yar ku istaagi doona shaasmaan baa dhawaan idinkaga quslin doono oo aad u yaqaan arrimahaas oo dhan arrinta ku saabsan xuquuqda uu leeyahay baa bilaabatay baynu nidhi xuquuqdiisa maxaa kamid a والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولبدا هويد waxay nuujinaysaa ilmaheeda 2 sano oo kaamila laba hawlayn kaliya lagu madeeyay kaamilayn daasi waxa la yiraahdaa suurgal hawlayn hadii la kaamilayn lagu taakiidin taqriiban bay soo galnaa taqriiban 12 bilood taqriiban 10 bilood soo galnaa kaamilayn waa 24 bilood حولين كاملين هدي أن إلىها مثلا لبا سنة تربية راسية المها أن لبا سنة أو أقلالي لبا سنة نوجمها رضاعة كل هذا لقاها هذا يمعنى هذا ما المها أفكار نحلوص وحضانة دي ولا ترتوي كمتكاملة هو يلا وحال الرأي المه إنه هيستول لبا سنة سو ولكن سكلك أوسو يلا والله هاي
iyadoo dhalaynin iyadoo isaga kaliya hooyo inay haysato oo haddii xataa aynan nuujinin oo xaa'il tahay xataa inay u joogto isaga maxaa yeelay wuxuu u baahan yahay hooyadii firaaqada u haysaysa oo intaa haysay oo qalbigeed mashquul ah kolkay sidaa u dhashay saddex kadib haddii haddana la booday wala bilowdo oo laga gooyo oo laga fogeeyo oo xafaayadda ka bedasho iyadoo ma tagaysa waa raji ilmahaas raji weeye ilmahaas man uuna helin mas-uuliyadkiisa xadaaradiisa saxda ahayd sidaa darteed hooyooyinka iyo aabooyinka waxaan ku waarinaynaa xaqa ilmaha in loo guto labadaas sano muhiim inay ilmaha u tahay tarbiyadiisa muhiim u tahay wax weyn baa yuu kugu leeyahay xuquuqa ilmaha isaga xuquuqdiisa waa kugu bilaabatay marka tarbiyadiisina waa bilaabatay hadda ku ormaya qur-aan u akhriya alba u bilow isagoo 2 jir laakiin waa arrin fara badan oo xuquuqdiisa kamid ah oo looga baahan yahay oo lagu fulinaya baa jirta muddada 2 sano ah oo hadday dhaafto 3 jirka uusan kusoo kaban karin 3 jirka wixii 2 sano gudaheeda xaq ahaa u lahaa 3 jir uma kabi karin maayo 3 jirka uu waajibaadkeedu gaar ka habay leedahay qofka murabbiga ah dubbada ku bilaabay shaqadii dhalintu caada ma aha waa process manhaj weey qofka isaga ah dubbada shaqadii ku bilowday ama labadoodii oo wada jir ha noqdo ama midkood ha noqdee mawdka kala saari kara oo midkood baa dhiman kara mid kaliya ku soo hari kara siyaal fara badan mid ku soo hari laakiin al-asl waa in labadood isla joogaan waxa weeye baa leeyahay waa shaqo adag min as'abil a'mal tarbiyada waa shaqooyinka midda u adag aniga kolkaas ka hadlo kolkaan awal tiyo loo akhri jiray iyo markaan amaliyo arko kala duwan waa shaqo aan qabto midda igu adag qof bani aadama oo adigoo kala oo marka soo horgal inuu ka cilmi badan yahay ka aqli badan yahay haddana inaad wax u sheegtaa doonayso soo horgal ka cilmi badan yahay soo sidaa darteed wuxuu u baahan yahay baa la yiri inta aan la dhalin in la bilaabo in wax la isku la qoro marka sidaa leeyahay waxaan ku salaynayaa tarbiyadeena meeshan adugu heblaay imise moodina dashaa doonaysa waqriba min hada waxa ka hadlay qariib ay ku tahay horta imise moodina dashaa doonaysa waxa alla isiyo alxamdulillah waxa alla siiyaa laakiin hadii wax kasta wuxuu u baahan yahay tartiib buu baahan arrintan arrin culus weey ilmihi baa ku dhashay wuxuu u baahan yahay inaan ilmahaaga wuxuu alla ka dhigay waa gaar inaga laakiin adigu maxaa rabtaa inuu noqdo macallin daaciya u rabtaa ma dhakhtar baad u rabtaa ma macallin baad u rabtaa ma siyaasi baad u rabtaa isagu sida waaga dambe natiijadu noqoto hal la gaaray laakiin adigu maxaad u doonaysaa adigu waxaad u doonaysaa ilmahaagu ee ku dadaalaysa inaad weyda mooyeen waa maxay qorshahaas markuu idin yaalo oo isku ogtihiin waxa suuragal ah inaad showt weyn goysaan oo ama aad 4 tiim ama 5 tiim ama 6 ama 7 ama 9 alla idin siiyay inaad kulligood inaad kaga najaxan qayb weyn kaga najaxdaan markii waxa uu yahay wax tambiinsan oo talagal markuu yahay iyo markuu si caafimaad u socdo oo aadam waxaa jirtay wala dhal jiray aadam waxaa jirtay dugsi quraan la geey jiray aadam waxaa jirtay iskuul baa la geey jiray wixii soo baxaan aan aragno sida xaaladu ka duwan tahay hadda waxay baahan shaqadii waa la haystaa sida noo soo socota shaqadii waa la haystaa oo dad aad inooga tababar oo inooga facility badan iyo resource badan oo yani inaga dhaqaala badan baa inala haysta dadka caruurtooda waa weynaatay baa garanay ilmaha halkaa fadhiyo oo la sheekaysanayo qof America joogo oo hadduu doona macallin ما دبت هالناس إذا دبت هالناس وكل عملت ما كويس أباها كويس دبت وصلت دبت هالناتونو ما دبت هالناك مركا وإنا كتلا جشا إنا ترتب كجرت ولي من نقف يلا بي يصدق يترتب كل جرت عالم دم وما وصعدا يترتب كل جرت سأترتب وإن وجرو قولي برنامج وين كجرو برنامج لو تلاقى وين كجرو هي بروح حسب راسنا وحاسين ربنا واقدم يسوي اختيار قالوا او كوبا سو تربيه 4 iyo 15 sano inta waxa noqon dhakhtar waxa noqon caalim soolaha soo bedela way aragta haduu isbedelna isaga uu yani shaqadiisa weeyaan نعم marka waa inuu qorshe jiraa
aynu inagu ku talagalno ilaahay inagoo tawakkulayna qorshaha kadib yaa waxaan fiirinaynaa intaan ilmihii la gaadhin aniga imkaaniyaadkaan haysto waxna waa sida loo baahan yahay waxna waa wax adigu aad tahay inagu waxaan sheegaynaa un hadda almurabbi الnaajix tilmaamihiisa baan sheegaynaa qofka wax tarbiyeeye ee sida qaalibkaa ku najaxa ama haysta imkaaniyaadkii bal najaxaadkii iyadoo xag allay taallaayo waxaad arkaysaa qoys aan wax imkaaniyaad haysta ilmahooda alla u najixiyey dad imkaaniyaadkiisa oo dhan haystay oo haddana aan najixin waad arkaysaa laakiin dadka awoodda u leh inay wax tarbiyeeyaan ee imkaaniyaadkoodii haysta yaan tilmaamahooda awalan markaan islaam sheegayno kow waxaa ah salaax waa inuu qof ilahay ka cabsadaya qof ilahay ka cabsada inuu yahay qof ilaah ka cabsada inuu yahay laba arrimood ay muhiim u tahay tarbiyada aada dhagaysta mid waxaa weeye waa qudwa qofka wax tarbiyanaya waa lagu dayanayaa qofka wax tarbiyanayo waa lagu dayanayaa weliba ilmuhu inta uu yaryahay waxaa la ilmaha marna adaa daba ordaya marna isagaa ku daba ordaya markaan nadari u akrin jirin arkaa maan garan lakin markaan hadda xaqiiqadii la kulanay waa sida mar baa jirta adigu aad daba ordayso xataa telefoon in lagaa qabo way suuragal dad badan waa telefoonkaas agama qabanayo qofka hebela waa dabiici kuma u nacbo ma kolka telefoonkaa qabo in ku necel yahay moodi kuma nacbo waqtiga uu joogo meesha uu joogo xaaladda inuu telefoonkaa qabto ma uu doonayo way takili inta meelka odayga Soomaaliyeed baan fahmi karaa xaaladda aad wacday iyo meesha uu joogo telefoonka ma qaban karo laakiin adigu marka waa ilmaha uu ka qaban waa insan noqonaysa xaalad baa jirta marka uu ku daba ordayso oo taasaysa xaaladda qudwa tahay adiga wax alla waxaad samaynayso baa la quman waqtiga isaga waxaad samaynayso oo dhan baa la quman haddaad hooyo tahay haddaad aabba tahay labadaba siba gabadhu sida qaalibka hooyadu waxay samaynayso oo dhan waa perfect aabbo wiilkuna wuxuu aabbo samaynayo oo dhan waa perfect sida wax wanaagsan haddaad saalix tahay marka salaaxii buu kaaga baranaya yuu kaaga deenaya wixii wanaagsanaa aad samaynaysid ee ama ficil ahaa ama qowl ahaa ama wixii aad xaaladii aad la noolay jawigaas oo dhan buu xambaaraya marka inaad wanaagsan tahay waxay u tahay tarbiyada qisbigaas way ka tahay midda labaad qofka taqita ilaahay ka cabsanayso qofka ilaahay wama yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusran samahin wama yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja qofka ilaahay ka cabsado arrimiisa alla sahla qofka ilaahay ka cabsado ilaahay makhraj u fura arrin alla ku sahlaya وحديث كهذا يبقى إنه قف مركو إلهي جعله هدو وين سالني لو عطينا وين سالني لو عيدنا هدو وهو يستواسينا يا هدو هيجبد بال طلبنا وكبد بالنا يا إله ما هو عاونا مهمة ومهمة على صوشة قوي صلاح مهم ويمر تأثير بولية قفك تقيا تأثير بولية أو ما وهو رادية المهيو الجو قفك مربّقة هو رادية كلك أو يهاي قف إلهك عبصنا سأضرت يدبا المحال اللي يلاها ما خرج من القلب وصل إلى القلب وها قلبك كسر بحا قلبك كلنا جاب فكذا دا عد إخلاص يتصلع وأتلون شيء المها جينا رائد راميسو يهجوي لك طبعا لا الشعور بالمسؤولية صلاحي وحيل كل يهاي الشعور بالمسؤولية وإن درينتم إن واجب سارية لو هنهار مريني حكم التربية وجوب قوا أنفسكم وأهليكم نار مركب وين الحل كادرته والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مركب الشعور بالمسؤولية إن حل إن درينته حل إن درينته واجب بشيء لا يعطيه هدي بقى وحنا قلنا أنا بحساي ويألقتها هدي أد ويدنا وإن عوض رادسايو دور ستا قفك مربيها قلنا سيد عليها أنا قاعد أقولها أنا ويادنا ما كان بيش الجوجنو وحنو ناي عندك وإن لقوينك أي عرورتو أي كو أد وحو فاميلي يعني جميلين على الأقل هذا جميل كرنا ما كان وحلو بهايا إن المه لغة إيو ثقافة وحكو فهمي كرو إن أساسيات كذي الحست أساسيات كذي الحست لو علمي لي يعني علم غير الدين هالكلمة وسيلة كستو علمها اللي هو قالي كرو
تربيتي سوينا علم لا هذا علم لا إنه وين لا كم بحسا أو رادسة وتسكت يداوي أقون مركا وفن دل الله برتو تربيتي سوى ضروري وأنا وحى وهو هذا قوي شقويك مثل معلق الليلة إذاك وحبرا مادة قوية قانا ويجي ومادة قصة وتسكولك لكن مركز هذا كورس بالله دينا حكورس الله دينا حلو ولا تجديدين ولا تجديدين ولا مسبورسين طلعوا كان هذا يروي يجوكنا وحبرشوا وين على سببتين هلا أنت أساسا كم شغل خلاص وين عليه حلو بعدين مرة بعدين اللي هو سؤالي واحد بدل أو كورسية فرق بدل قاطو سأل أنت كم مغرب يحس بدله ودم واحد بدله علمي ما هذا هو بدل الله وين ما عليك حسابته لكن واحد بدله واحد وقابك وحلو بريء بدله يمرون سيدا درت وإنه علم ليه هاي قفكي أقونت وسائلك لو جارت تربية وإنه ليه إن شان الصبر والتحمل وعمل أرق واستمرارية وباهم ووقت كل صعنا يقول الله هي مقدرة وده ما رسالة مركا وين طول النفس وين صبرك مركا قاتل بعد الدلال اللي بدو يسوي واحد كتلاش نتيجة دي صفر مركا سكر محاط سمين وأنا صبري يعني حق الله ندي بعض في الرسالة يحكوا صار نبوها إن أتصبيسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أول ده روحي أي هاي مركا أجود بيسو هذه النتيجة دي إنه قوي ده سادوني سي مركا أقول لك ما كم هايستو دي مادي أكو هايستو دي دينك كم هايستو هاي أنبياء اللي كنا عايتان سما أنبياء اللي كنا النبي الله النوح النبي الله النوح حاس كيسي يعني إن وكون أنبياء بيت النبوة كان عليه بيوت الأنبياء كان عليه مركا أي تكسر وحوي وإلى بيسو لكن مع ذلك حتى هذا علمه انحرافه أدو ولي تربية وكسر انتهي بأي وسيلة إن الصبر يطول النفس إن كسر توي أو ولي من خلال العملية لما لا هبين يسكت هبين واد عريس انتهي مضحك وحنونية هبين واد يرى فرح انتهي هبين دين على وكا عريس انتهي دين على وكا فرح انتهي نولش نول غريب أو علسوي سأدرت وإن طول النفس صبر يتحمل وين عندنا حيوان سوى أنا كنت نقشان قليها أولي أرتو ذي وينني وحصل ذكر قليها إنك أرتو وينني أدو فهميان وحن كامل إن رحيم وين رحمة ضنتها وين رحمة ضنتها وأنا مربي والله هداد والي تهي مربي باتهي معلم هداد تهي مربي داعي هداد تهي مربي باتهي ملح هداد تهي مربي باتهي رحمة وين يعني رحمته مرة قاركود وإن أت رحمته أي كنا في سوء أحزان إن أول أي كسيسو مرة قاركود أت كر يعني الله يبكو حيستو رحمة ده أقول رحمة حريصة ليس درتين وين أقول صبرتها أقول حريصتها هاي لك السوقات سيد النبي إلى مربي وهاي عليه الصلاة والسلام وكنت المامي ضدك إن bahashan baalayda oo dab inta la shiday dabti ku dhacaysa oo ka hayo oo kaleeto marka qofkii oo dab ka haysa miya daalaysa qof hadaa sidii dab ku dhacaya miya ka daalaysa maya waad u naxaysa maxaa uga daalaynin waad u naxaysa dab ku dhacaya marka qof dab ka haya iska soo qaad marka ku daal ku rafaad hadana hay aba u naxariisanaya naxariista raxmadaasi waxay keenaysaa marka inaad u sabirto oo aadan marnaba ka daalin raxiim waa inaad tahay marka waa inaad u naxariis badan tahay رحمة أنا وحلو يقانا النبي الوكيل عليه الصلاة والسلام شيء كست أو رفق وقلا رفق قاسي زانة وقطعية أنفق شيء وقلا أردنا أنفق وعنادس وقلنا وحمية مركا وإن رحمة يا رفق مر والبه أي أنت أتكو حلين كانت مشاكل كرفق يا رحمة مرنا هذيك سنة حزم لكن محال شدة بلين ولين بشدة قفك مربي ورحمة كلية من نقول في ضد ذلك النقطة اللي حاوي الحزم قف قان هذا وينات ورحمة الله تهمينون الرسامة معناه يدو معها إن هذا رحمة الله تعالى وحول رحمة الله كحنك تمي مرة قاركم حزم بيوبانتا قان أذيك بيوبانتا المهم أنا وين تاكو برضو إلى مركي ويرا إلى مركي وينالو حزمي وين كويا قان حزمي محاكا ولا وقانا ذي تربيتنا سيدة ومواقف
وكفر سنة نبقى هو يجي نجمد نرجو هو يدا الصومالي حين هذا اللي المهم مركو نشيك صوب الله تصالي يا حسب قاسة اللي كتفه عينه مال والبقالي سوى هذا الشيء يوقع يا سوى هذا الشيء اللي قاعد حسب قال سوى الله تنجينا ولا قاعد باين رحمة دينا مر والبقالي قاعد باين بس وقع كي يرى هذا الشيء وتي يرى هذا الشيء بروح بورنا باش حفاية دي بعد كبر الشيء عاني بعد سي واحد بعض الصبح يسوي قبل سي سريرتي بتقول دي وي محيرتا إيه هاي مركز كان محل جاب هاي حزم ما يلا حكى مرة كوجه وحكى مرقان مجرى وكوجه هل كاسي يقول لي سوي أوي ده حلوية أنا وحكوا لي دونيتي ده شو واللي بحال لي هاي لقطة علاص لا نركز صدقنا هو سبورت سو حبوط ترى كدينا هردا كويس ما حي كبران كل كوشندير يا سيحو مسيح لي صادو كاسي حب هل كاس كان بالله ونيسا سعدي ولا قال لك كاسي ما نمبرن ما تدل الموتي شندير مركوها سدحدي مركوها ودي إذا سريت ما تقطي شندير مركوها مو ولا مسيح أنا يقوله سيارة سميني أتومك هذا سوجي كل عياري بس ما نمبرن إن الأمر سيسوسي حد ترى ما نمبرن ترتيب كي إيو تنظيم كجوري جبوا كان كاس كسر الله مركي هراء حبايد ده كبر دشي كان كاس بالله مركا كل كوينا أنا واسدا وإن ساعدها هبنا لي إلى جوري يعني لك واحد لقى قبل لقى يقال ساعد كل ترى واحد ساعد كل ترى واحد ظلم ما قال لي بقى تربية ورب بقى قفتا وإنه التنظيم جوري جولي كلا الدنبين وإنه جيت واحد حقه له هاي فيري مركا واحد صور قالنا قالوا إحنا صار إلى هي مي جوري قال أنا بوسكا ساعدها سلقة السحابة مية شيء لما تنهدد جيتوا إلى النور شوية التنظيم بقولنا هذا استعوذان هذا كوي لي والكفير هذا استعوذان بوليسك أنا كوي الجوري أنا إني دقيقة هاي نلعب جيش الواسطة ساعدها سلقة السحابة ساعدها كده موسو قراك ساعدها كده تيجي في سكرت ساعد والله وي متى هلا وقعدت على كل جيران هذا كو قصبي مركز ضمان قانون بكنا قنايا قانون كان مركز وحكوا حزمي وإن جيو ها حزمي وإن جيو marka dambe uu ku tarbiyoobaya saacadii waxa TV wala daminaya internet wala daminaya fiilada laga saaraya wax walba okay way laakiin hadii aad maalinka carooto TV ka dabiso inta kale ay fiirsadaan marka uu carooto aad ka oohiso maxawiyada lagu yaqaan Soomaalida wixii way baraysaa maalin bay caroonaysaa way u diidaysaa markaasay darbaahay ku faraysaa bow kulku ooyo bay ku aamusiin wixii ay u diidareen inaysiis laba khalad bay gashay amarkiisina way qaadatay wayna dishay سما والله ما خلاص أمر كيسنا ويقاطع وحدوري ويقصميسي وين الشيء والله مني لسه بسمعين أمر كيسنا يا شماعي ده أو يسوق دمال ويتسيد هذا وحما يشيل ما حبوا تطاو والله وحيا شمال مرك حزم قال له باهي من اللي وحاكم منه قف مربي قال تلماميسه وحاكم له حزم الحرص بذا أنت أصور شكله أنا هذا وقف كلها لكن مسددال بسمينه ددال بما سمينا يوم واحد نسوي كنا جحنا ددال ما سمينا بس عوني ددال وين كوجو حرص وين كوجو ساعدي وحبرن لها ساعدي وساعد لها ساعد التربية قال لها هدو وياهي ساعدي يعني وحرص على وقت جيس يعني نركيسة عنتديسة حتى هذا السنة ليه يعني عنتضع التربية غير كاملة عنتضع قال كذا مو هدوء عنو ونقول الماء عاجزة قال كذا هدوء عننا ونقول هي الماء أكتيفة عنتضع قال كذا ذكاء كل ساي قرصة كل ساي عنتضع قال كذا بلهذا كأنت يعني أرماها صور يعني وحوي وده الغرة وقفك إنه الماء أصفر مرة وقبو يعني مرة وكل وصورة هو يسوى عليه حكوا جد داش لكن عنتضع يصير يسوى ها تنظيم الوقت أرماها حرص صاصة إنه سوي لوجود دال جا صورة قال إنه وجرو الحرص في كل شيء من شؤوني شيء والبقى شؤوني سكملة إن ذلك كم يسوي أو أنت صورة قلعة مأكل كيسية مشرب كيسية معلم كيسة أكيد هذا شيء أنت ما أكيد هذا شيء وده حقيقة أنت صورة قلعة أنت صورة قلعة أنت أيضا ما يكرس كده الصدق في التعامل إن أخوك لا تعامل
weligaa beeraha u sheegay ilmaha waxaad ahayn ma hayo ha ooyo ma hayo dhaqaalaha buu sheegay aabbo ama hooyo waxaa maba heli karaba internet wuxuu ku yidhi mobile intaa jooga soo ma hayo lacagtiisa ruusha ama raalli kama tihid inaad soo gado may kaa kuma soo gaday mar rabayna kusoo galkaa miyaad rabtaa anigu mar rabayna kusoo inuu kusoo galo hataa mar rabo sida runta aw u sheeg kula tacaamul waxaad u ballan qaado isagu ma yaqaano waxa loo ballan qaado waa la waayay marka waxaad u ballan qaado adigu ha goynin wixii awood ay qadar la ku yimaado mooyeen adigu marnaba ha goynin marka run kula tacaamul haddaad been u sheegto been buu kuu sheegaya waxaa kale dambeelo uu kugu baranaya kuma ixtiraamayo tasqutu can ayni idhiisaad ka dhacaysa weligaa waxaan run ahayna kula tacaamulin marka aad xikmad kula tacaamul wax maanta aad kula tacaamushaad berri daynaysaa shay maanta fiican baa berri khalad noqon haya maxaa yeelay xaaladda isbedelaysa xaaladiisa isbedelaysa taada isbedelaya xaaladda adduunka isbedelaysa wax maanta maxaa yeelay haddaad shay walba siduu yahay uga jawaabto waxaa suuragalda ilaah matid ilaah wuxuu doonaya u socdaa marka inaad xikmad kula tacaamusho oo waxa aad samaynayso oo dhan aadan marna kaga tagin weeye marna aadan kaga tagin aan xikmada ka tagin weeye kadib alcadl haddii caruur alla ku siiyey inaad cadl u samayso wey inaad cadl samayso oo aadan marnaba eexo aynan kaa dareemin cadli inaad u samayso wey tilmaamihii qofka murabbiga ah intaasan kaga tagayno shan daqiiqad ku hadhay baa layidhi qaybta labaad marka waxay ahayd binaa shaksiyatihi see shaksiyadiisa loo dhisaa shaksiyadda sida loo dhisaayo waxay u qaybsan tahay isaga ahwaala mar waxaa la yidhaha tifl waa markaa dhasho mudday leedahay waxaa laga bilaabaa 1 ilaa 7 waa marxalo 7 ilaa 13 waa marxalo 13 ilaa 24 waa marxalo mid walibana waxay leedahay qaab loola dhaqmo oo kale ka duwan iyo wax uu baahan yahay oo marxalada kale ay uga u baahneen adiguna waxaa lagu yaqaanaa awoodii aad lahayd markuu halka sano jiray markuu 24 jira mali waa gabadhaadi laftaada ugu xaaladaadi way isbedeshay sidaa darteed waxay u baahan tahay arrimo fara badan oo gaar in loola tacaamulo u baahan laakiin waxaad ogaataa kolka aad la tacaamulayso marxalada koowaad oo ilaa 7 ah waxa uu u baahan yahay uu ka duwan yahay 7 ilaa 14 ilaa 13 14 ilaa 24 wuxuu u baahan yahay oo ka duwan yahay markuu halkaa gaaray waxaa la yidhi اجعل الحبل على قاربه مركا نصيحة سكولين 24 مرة دوغان قفتي نصيحة سكولين موين أمر ينهي اسكماليهدين مركا لاعبه 7 وعلمه 7 وصاحبه 7 ثم اجعل حبله على غاربه بعرفته الرجل تضوهر العيار تضوه ضمانه وحبر تضوه ضمانه لا صاحب مركا ضمانه حرقي سقورته وصار marka wax badan ma meesha oo soo diyaariyay meesha igu qoran laakiin inta wax badan wax walba isaga oo aan buuxin aan ka tagayna waxaan jeclaystay inta hore sifaat al-murabbiga inaan ku koobsano inta dambe oo si loo dhisay lahaa waqtiga inagu musan gaarin wajazakumullahu khayran wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa baraka